ديار موتين أصل طالب المجن ولا تعطي ديار مويهي ديار مويهي أنا دعوان دولة يا ديار موتين انتنا عندك هيك جوطة هنا بتعطيكان ديار موتين عيسى هذا في سوها إلا ينقضوا على ذلك وحنا نروح إلى صومري أنا أبو هرية waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkan waxaan rabaa inay cafisaan Ma heshay cafis? Sidee baa u heli karnaa in dembiyadeenna dhan Alle inaga cafiyo? Walaal, ereyga cafis ha yaraysanin. Ereyga cafis micnihiisu ma ahan micno iska kooban. Ereyga cafis micnihiisu waa sida looxa oo qadda laga nadiifiyo ama laga meero. Dembi dhaaf, deen lagugu lahaa oo laga cafiyey amaba deen lagaa daayay. Qof aad qalad ka gashay oo Ilaahay dartiis kuu cafiyey. Markaan qof qalad ka galno waxaan raadinaa cafiskooda si xiriirkeena xumaaday uu noqdo mid fiican oo ka wanaagsan siduu markii hore ahaa. Cafis lama hubo oo mudnaan laguma helo. Cafisku waa ficil jacayl, naxariis iyo dulqaad intaba ku dheehan. Cafisku waa go'aan ah inaadan waxba calooshaada ugu qaban qofka walaalka ah amana aad dad u qaadin oo calooshaada ugu qabanin. Wax kasta oo kugu sameeyo adigu waxaad isku daydaa inaad cafiska doorbidid amaba Ilaahay dartiis adiga u hartid. Sababtoo ah cafisku waa shayga keli oo qofka bini'aadanka ku fiicnaan karo oo ku caafimaadi karo, niyadiisana ku qaboobi karto. Cafiska ayaa ah habka keliya ee ugu fudud oo marka la sameeyo horey loo sii socon karo laguna iloobi karo wax kasta oo horey usoo kala dhex galay laba shaqsi, laba koox ama laba guruub iyo wixii la mid ah. Sidaasi darteed waxaa muhiim ah in qof kasta oo Soomaali ah uu mas'uuliyad gaar ah iska saaro, waayo ummadani dhibaataysan cidna uma maqna caalna uma qadna aanan ka ahayn adinka. Cidda keliya u maqan waa adinka. Marka waxaad isku daydaa in aad hormuud u noqoto iscafinta ummadan walaalaha ah. Dadka Soomaaliyeed waxay soo mareen xilliyo adag. Waxaa soo dhacay wax badan oo aanan qurxooneyn, laakiin maanta ayaa la joogaa xilligii la laabi lahaa baalkaasi mugdiga ah, sidoo kalena la furi lahaa baal cusub oo aan ku qori karno cafi walaalka, cafis iyo musaamax.